أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إلهي سبحانه وتعالى يا محل نقص كل ميين نسكو شيخنا خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا إن أمد المسلمين تيدقيستانيسو عمارة كتحن بيجكيغا أما يوتيوبكا أما ويب سايتكا إلهي سبحانه وتعالى إنه مارتي مهمة أما مارتي معناها نصو قلي إنه إلهي سبحانه وتعالى غيرك كجر إلهي سيو انتا كذب. waxaan ugu talagalay walaalayaal inaan walaalaha muslimiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dhigay walaalaha inaan uga faa'iideeyo xasadka iyo dhibaatada uu dadka maaragtay ummadda bulshada soomaaliyeed uu ku hayo. sidaa awgeed waxaan ugu talagalay caawa inaan walaalaha muslimiinta ah aan uga hadlo barnaamij ku saabsan xasadka iyo dhibaatadiisa. ma bannaana shareecada islaamka qofka inuu xasdo dadka muslimiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray khaasatan dadka maaratay ahludiinka ah iyo maaratay dadka maaratay bulshada nooc walba leh inuu waxaan ugu talagalay inay dadka muslimiinta ka faa'iidaystaan iyadoo maaratay aan wax uga doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan doonayo dadka qaawan yihiin la cagcad yahay ee buriiqabka la yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala igu naxariisto. barnaamijkaas aan soo gudbinaya ah midka hadda aan ka shaqeeyo midka shaqada walaalayaal sidaan wada ognahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaa ugu badanaya maanta dadku maaratay ay isku hayaan ama maaratay dadka muslimiin waa wuxuu ilaahay qofka muslimka wuxuu ilaahay siiyey haddaad adiga u diido ilaahay siiyey maaratay qofka ku markaa ma bannaana inaad noqoto qumayo ama qumay. waxaan rabaa marka walaalayaal dadka waxyaabaha ugu badan ee maanta la isku cawrinayo ama la isku xasdayo in allahu tacaala aan inta ilaahay maaratay garadsiiyo ummadda muslimiinta ku baraarujiyo maaratay dhibaatadeeda ee ama maaratay qof baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u siinayaa hoy fiican guri fiican gabar fiican ama nin reerkaas ilaahay barwaaqeeyey waxaa loo quuri weynayaa barwaaqada ilaahay siiyey. waxaa ugu weyn ee dhibaatada ay ka imaanaysana waa dadka qaraabada la ah ama maarata dad u xiga ama dad kaloo shisheeya
marka xaasidnimadaasi reerka lagu samaynayo waxay ka imaanaysaa in ayadoo maanta dadka walaalayaal qofba shaqadu uu hayo qofka ku ee camalkiisoo kale haya inuu xasdo ay u noqotay dhaqan qofka hadduu ganacsi yahay oo maaragtay dukaan haysto waxaa xasdaya ama maanta ay caado ka noqotay kuwa maaragtay lale dukaamada kuwa dukaamada ay u furan yihiin ayaa laga yaabaa qofkaasi inuu maaragtay ku noqdo xasad oo uu yidhaahdo maaragtay dadka maaragtay qofka muxuu saa u helay annaga dukaankeena ma soconayo maxaa kiisa loogu dadka ay ugu sii dareerayaan iyo waxyaabo kaloo fara badan waxaa ka mid a gabar baa ilaahay subxaanahu watacaala guur fiican ilaahay waafajinaya dabadeedna qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala way guursatay waxaa laga yaabaa gabdhihii facid ahaa inaysan guursan dabeedna gabar baa laga yaabaa inay tiraahdo allah taamiyay guursatay haddaan sida gabadhaaso kale maaragtay aniga noqon lahaa wallaahi aniga ku ficnaan lahaa halka ay joogto ama meesha ay gashay taasina waxay noqonaysaa xasadnimo dadka bini aadamka maanta walaalayaal maar intooda badan ay ka soo daahirtay waxaa laga yaabaa laba nin oo wax isla baranaysa in jaamacadda ama iskuulka ama dugsi hoose ama dugsi dhexe in maaragtay qofkaasi makaalmo u galo ama uu maaragtay waxbarashadii ku guuleysto kaa kale ee maaragtay fiirinaya ama marka jaa-isada la qaadanayo in maaragtay qofkaasi qalbigiisa farxaddii ku jirtay iyo reereyntii ay maaragtay kuwa u dhadhow ama saaxiibka la-ah ama xafladda kasoo qayb galay ay uga dhacdo xaasidnimo oo uu is yiraahdo qofkani uu baasay kaalin buu galay tol beeli waayey xaasidnimada meesha uu ka muujiyo deedna qofka ilaahay hadduu u qadaray ay xasadkii saameeyo markaysa waxaa ka mid a walaalayaal qofka hadduu kabatolo yahay iska daa wax kale qof kaloo kabatolo ah waxaa weeye ma ogola mana jeclaanayo marka wuxuu isku dayayaa qofka isaga ah sidii maaragtay uu maaragtay shaqadiisa uu hayo uu maaragtay dhibaato u gaarsiin lahaa isagoo maaragtay nacbaysanaya qofka agtiisa fadhiya ee kabaha toraya deedna ilaahay subxaanahu watacaala ceebteenna ha asture waxaa weeye qofkii isaga ahaa ee muslimka ahaa waxaa weye waxaa ku dhacaysaa il baa ku dhacaysa hadduu ilahay u qadaray deedna saameyn bay ku yeelanaysaa waxaaba laga yaabaa kabihii uu tolay inuu ka dhaqaaqo oo meeshaa kaba ku tolin baa laga yaabaaba waxaa laga yaabaa kuwa suuqa isla jooga maaragtay yaanyada gadaya yaanyada kuwa gadaya laga yaabaa inay xasad isku yihiin oo qofkan wax uu samaynayo ay islaantan yaanyada gadaysa qofka yaanyada gadaya inaanay ogoleen baa laga yaabaaba ama sida dhacday oo ani aan arkay ama qur-aan saaraq laygu keenay oo maaragtay ay sheeganayso in maaragtay qofka isaga ah ay u tahay maaragtay xasad ay ku tahay oo maxaa kusoo gashay ana suuqan wax ku gadaa adna maxaad gadaa yaanyaan gadaa iyadana maxay gadaa suuqii bay maaragtay yaanyo ku gadaa oo maxaad usoo gashay deedna waxay sheeganaysaa inay xasaday walciyaadu billah subxaana allah ilaahay haynaga koriyo waxaa jira walaalayaal qaar fara badan dadka macalimiinta isla ah ee iskoolaadka isla dhiga qaar baa aad kaleefar u ah ama macalimiin ah oo aada u fiican ardayda si fiican balaaqada u gaarsiiya deedna macallin kale oo maaragtay dee ilaahay subxaana watacaala si u dhaliya u abuuran ayaa qofka muslimka ah ee maaragtay wanaagsan ee dadkan waxbaraya balaaqadiisa iyo suux u dhigayo ayuu u quri weynaya markaasna xasadnimadii ayaa ku dhacaysa qofkii kale deedna hadduu ilaahay u qadaro ishiisaa ku dhacaysa markii qur-aan la saarana waxaa ka qaylinaya shaydaan jin ah oo soo raacay isha deedna wuxuu sheeganayaa macallinkii kale ee iskoolka la dhiganay uu sheeganayaa ilaahay subxaana watacaalana inuu ka shaafiyaan weydiinayaa waxaan sheegaya waxaan arkay weeyaan aan ku arkay arrinta cilaajka ah ee ilaahay shaqada iga dhigay iyo maaragtay muslimiinta dhexdooda sida awgeed qof walbaba oo muslima oo ahlu tawxiida waxaa weeyaan
waxaa loogu talagalay in maaragtay shayaadiinta wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiinu insi waljinni buu ilaahi subxaanahu watacaala marka waxaan u yeelnay nebi walbaba cadow jinniga iyo insiga ka mid a deedna qofkii nebi maxamed rumeeyey sal allahu alay wasalam jinnigaas cadowga ayuu leeyahay ilaahay baan weydiisanaa subxana wa tacala annaga iyo idinkaba idinka badbaadiyo sidaa awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala xaasadnimadaas maaragtay dadka muslimiinta ah maanta dhaqan bay ka noqotay wiil yar oo jayna ka yimi oo jaamacadu ka soo baxay ayaa suuq ayuu tagay laga shaqaysanayey deedna meesha dadka soomaaliya kusoo didiro ahaa markaa koox soomaaliya iyo koox shiinaysa ayaa u heshiiyey deedna waxaa le ninkaan suuqiibuu naga saaray aanu isagana ka saarno suuqa deedna waxaa loo sameeyey sixir waxay leeyihin sixir baanu anaa quraan saaray shalay iyo dorad meel dheer ma waqti dheerba maba ahaba waa hadda weeyaan jaynu ka yimid dorad buu yimi cilaajku yimi qur-aankii baa la saaray saxaradaasaa ka qaylinaysa oo maaragtay sheeganaysa inay yihiin dad soomaali ah oo maaragtay dadka maaragtay meesha ka shaqaysta ah ninkan inuu maarata suuqa ku cariiriyey oo maaragtay suuqii saas looga saaray walciyaadu billah waxaa ugu darnaa shaydaan sheeganaya inuu saaxiib la ahaa ninkan oo maaragtay qof hebel la yiraahdo oo maaragtay ay saaxiibo ahaayeen sixirkaas anaa u sameeyey buu leeyahay waxaan ugu talagalnay inaan qofka ka taqluusan oo dilno marka ilaahay baa wax dili kara ma dili kara shaydaan wax shaadiintu hadday wax dili karaan annaga ina dili lahaayeen waxba ma dili karaan facoodna ma dhama laakiin xasadku waa xasdi kartaa qofka meeshaad ku gaarsiisana waa la arki doonaa waxba kama faa'iidaysid waxaa kuu qeyr badan qofka muslimka inaadan xasdin waxaa laga yaabaa gabarra muslimada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala awlaad siinaya awlaaddaas uu ilaahay siiyeyna qof kale oo aan waxba dhalin oo si ilaahay ugu talagelin inuu dhalaba ayaa qofka xasdaya wuxuu leeyahay maxaa ku soo gashay ilmay leedahay ilmo ilaahay subxaana allah subxaana allah xaqiiqa aniga oo aan ku arkay cilaajka aan ka shaqeeyo dadka haddii looga sheekeeyo ma rumaysanayaan dad doonta ha rumaysan laakiin dhegeyso ha rumaysan haddaad doonto qofkaas muslimka ah ee gabadha ah ilaahay awlaadda uu siiyey shaydaan baa ka dhex hadlayso waxay leedahay iyadana ilmay dhashay hadday ilmo dhashayna maxaad ka rabtaa ma adiga ilmaa weysay ilmo miyaa weysay maya aniga ma weynine ayadaa ilmo dhashay ilma hadday dhashay maxaa kaa galay marka waa xasdayey aniga xaggeed ka timid daris baa nahay il baa ku dhacday xasada dadna ishaadii waxaa raacay jinni baa raacay jinnigana qofku ka hadlayaa aduuna ku sheeganaya adigoo ku sheeganaya hadduuba shaydaan ku sheegtay maxaad ka noo sheeg shaydaan hadduu adig ku sheeganayo maxaad ka noo sheeg aaba waxay leeyihin shaadiinta warkooda lama sheego oo lama rumaysto oo xaqiiqo wey shaydaanku waa beenaale waa ognahay laakiin adiga qofka dhawaaqaya waxa ka hadlayahay ma la beenin afkaada qabanaya afka shaydaan baa dhawaaqaya shaydaan baa hadlaya adeer qofka waxa ka hadlaya waa shayaadiin wey ilaahay baa soo qabtay ina badsha rabbika la shadiid ilaahay baa qabtay gacan adag buu ilaahay ku qabtay subxaanahu wa tacaala deedna annagu shaqadeenna waa inaan wareysano wey shaadiinta maxaa tahay xasad baa nahay qurun xasad baa nahay maxaa ku soo geliyey ilmay leedahay ilmo was'al allaha min fadli haddaad doonayso adiga wax dheeraadoo dadka maaragtay ilahay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi ilahay wuxuu le dadka miyaad ku xasdaysaan aniga rabbigaa waxaan siiyey ilahay wuxuu bixiyey aduma bixin kartid wuxuu ilaahay bixiyey adigu ma bixin kartid laakiin waad xasdi kartaa xasadka caynta qofka way ku dhacaysaa xasadkana wax jira weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayadihiisa qur-aanka uga hadlay nebi maxamedna ugu sheegay sala allahu alay wasalam
nabi maxamed baa maaragtay la xasday oo ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا بدنا كوا أهل الكتاب كمدا ومركي حق إلهي سبحانه وتعالى كل صاري كوا حسدي كفارتا والنفس هذا كوا حسدين نبي محمد نفط هذا كوا حسدين حسدكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم لحسدي لكن لغو ما كرين ما لغو كرين ما سامين حسد لماذا كفارا حسدا من عند أنفسهم نفط هذا كوا حسدين مركا ماشى سبحانه قال لنا إن حسدك ويهي وحن أو غفك مسلم كاهي مارتي وسم بنانين هذا مسلم تاينا كوما بنانا إن وحدنا اسكو دايدا إن أرنتا إذا كوانتو دا كوانتو هادو كو عبيسنا قري هادو كو عبيسنا حاسب نمو إيشا لبا قنتال باكو حرن قنتالها وهدي سامين كلها هايين تدك المسلمين تا وإنها وحسد هايين إلهي سبحانه وتعالى إنها قنا الله بتو إلهي كو أمره جل جلاله فإلهي رسولك يسر رميسان إن إنها الله بتو إلهي كو أمره سبحانه وتعالى رجل دمر با إلهي وحو أمره إنه دين اللابان لا بس سيدا ماها لكن وحو البو ودركتو غيره ما شاء الله تبارك الله له وقضع بصر كو صعو إنها يسكت تاقن وحضرت إنها كو تاقن هاي حسدك ما اللي بانيو الحسد يأكل الحسنات وح الله لي وحي غير والشقيستنا وحا كار رامصانية أما كار روغية وحا أتسامين يسو وحاسد لماذا أسامين كاقيا لنس محاك فايديسا محاك فايديسا مركا وحا أديك أجر كا شقيستا بلغلغية وكاعني أجر كاقي محاك فايديسا شك دن مكو جرتا قفكا مسلم كان يسكعفسو أولاد بلادهي ما شاء الله إله عنيقنا إنسي أيضا إله زيادي وحبو برتي وحوق لك أنت كواد ما شاء الله إله صغر وبركة عنيقنا إله زيادي مو بنانا حسد مو بنانا كوان تو حداتها حسد حداتها حاسد أما هذا سكر أورادو حداتها قميو يا حداتها قمي كوان تو dhageyso hadalkan ku leeyahay dhageyso adduunyadana waa ku anfacaya aaqiradana miraheeda ugu tagi doontaa haddaad ka waantowda xasadnimada aad dadka muslimiinta la dhex joogtid nima imaamaha salaad buu tukanayay taraawiix buu tujinayay salaada iyadoo lagu jiro ayaa mid dhabarka ka taagan ayaa codkiisa la yaabay maasha allah ma oran isla markii salaada laga baxayba ninkii waaba dhacayba بيا لو رشي ولا رشي إلهي وحو إلهي قرتسي بل وحال للشيخ رشي عن متغنو إلهي بس هو فجي تقول دايما كران إمسا بوربورن سيدو كلي إمسا مارتا دير ومقالة تشوغا ما إيمان كران إلا بإذن الله إلهي إذن كيسون با هل كان جوغنا لقو إيمان كران مركا الشيخ رشي هلو قيو والله كياني ورانكي بان صاري جنبا كذا واقعي إنسي هذاك مج قف إنسي هذوك وكلا هذيك هذاني وكلا سكور سنة قنيسة قف إنسيا مجلي كرو قف إنسيا لكن إيشا وقف وكل عيسى سيدي وكل عيسى الله أعلم إلهي ما قرنا سبحانه وتعالى ما قارن علمي أنا وما أنا قارن إيشا قف وكل عيسى لكن سهم القفية قنتال كان سور الدي مر الله عليه مركو إيش هذا كسر بحوا جني بس كسر الله ماني وبسدور حبيبه وبسدور حبيب طريق البوتانية هي مضى مسلمين تاع هو إله كبد باديو لأن جركي سكر يا بفكا بقاق أنا هبل بانا هبلاي أنا هبل بانا هبل هاكو سوق لي إمام كمساج كنا تجيني يوي
dabadeedna waa cawriyey waad cawrisay haye oo maxaad maasha allah u dhihi weysay codkiisaan la yaabay qur-aanka suu akrinayaan la yaabay bullshit waxaasi nolol ma aha adoo salaad dukanaya haddaad qumay noqoto waa meesha u dambaysa weyaan ilahay baa ka saaray subxaanahu wa tacaala imisa qof baan la kulmay ay dhibaato weyn maarata u geysatay cayntan xasadka ah iyo caynta kaleba imisaan la kulmay shaqadayda waa shaqadayda weye sheekh marka qof walba qofku ku profession yahay ayuu xasad ku yahay bas nin baa fiican oo wadaada ilaahay yaqaana oo muslima oo muxaadarooyinka ku fiican oo balaaqada ku fiican mid kale xasdaya mid baa jooga xasada imise qof baa laga keenay oo muslima oo dadka inta waadin jiray deedna gantaalo ku dhufteen gantaalo waa isha weeyaan in qur-aan saaray ee laga qayliyey imise qof oo maanta muslimiinta ka mid a ayaa la keenay oo telefishinada laga soo dayn jiray oo shayaadiintu ay asiibeen oo maxaa lagu asiibay oo ninka wacdinayo qayr buu waday maxaa loo isha uga dhacday ishu waa biidni illaahi wey العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقه العين كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو حق وي وحجرة هذا يجري غضاها إلهي قدرت إلهي وكدر يدي يجري لهنا سبقه العين إيش كور مر العين رميش أو حكي قادرنا مير البوت جوبتو إيش عسيني مارتي قفك ساميكو يرى ليسو weli ma aragtay qof laga cunay america qof jooga soomaaliya shaydaan jooga uu leeyahay waa la cajibay halkaas markay tagtaan la yaabay si halkaa ku tagtaan iri marka ilaahay subxaanahu wa tacaala hooyada muslimad laga keenay ilbaa ka dhawaaqday maxaa tihiin markay america tagtaan la yaabno waxaa weeye america maxaa jira sootii laga soo qaylinayo ummadda kasoo yaacaysa maaha maxaa qofka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ishu xaq weeyaan suu nabiga sheegay sal allahu alay wasalam sheekha marka waxaa ku dhacday ilbaa ku deedna ilaahay baa qadaray in aniga ilahay saaba iga dhigo sabul shaa sababta qofka ayaa aniga laysoo dhexmarsiiyey dawadiisii ayaa ilaahay soo dhexmarsiiyey ayaa qofka ilaahay soo dhexmarsiiyey subxaanahu wa tacaala waad aragteen kuwii annaga beenta naga sheegayey ee na xaganayey ee maaragtay lahaa waa sixro waa maaragtay diin ma yaqaano kuwii lahaa waa kristan sheeqani waa diintu wato waa diinta kiristaanka waxaa soo baray sheeqan kristanaa soo baray youtubekay ku jirtaa sheekh banaalo weeyaan youtubekay ku jirtaa marka qof muslim haddaad tirado waa kiristaan oo aabbaha sheekh banaalo adigoo u helanaya aad qof muslima caqiidadiisa u quuri weyso xayawaannimo weeyaan marka qofka wadaad haddii lagu sheego oo le sheekh hebel sheekh rag fara badan oo dadka muslim ku dhex jira yaa maanta qalbigooda ilaahay ogyahay subxaanahu wa tacaala laakiin anigu ilmihii iyo sheeqii iyo waxaasoo dhan ba marka cafiskaasaan iska qaatay maxaa yeelay waa xasadnimo weeyaan qofka muslimka inaad caqiidadiisa dadnimadiisa kartidiisa aad ku durto oo aad waxausan cafi oo aadan maslixin oo walaal waa kaa gardan raalli aakhiradaada waxaa weeye ilaahay baa garanaya
لكن أنا أقول الشيخ بين الله وعفيي المهي عفيي محيلي ولا جايبكم مسح هبين أقدركم أنا مركا حسد نمد قفل بحسد أنا هكون توبو بين هدا شيكتو وقفك كشيكتو أنت اللي جاري يوم بقى أنت عاون waxaan ku talagalay muslimiinta insha Allah ta'ala inay soo galaan waan ka quraan saar insha Allah ta'ala marka in zoomka ay soo galaan ciwaanka ku qoran YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo website-kaba marka waxaan rabaa inaan ka soo faalayo xanuunadaas heebaha uu dareemayo madax xanuun waxa iskale caynta iskale qofka madaxa xanuunaya marka madax xanuun reer weheliya madax xanuun uu wareer la socdo haddaa isku aragto iyadana isha iskale caynta iskale madax xanuun dhinaca maaragtay dhinaca ama goonjab cudurka goonjabka xanuuna iyadana isha weeyaan calaamadaha isha lagu garto weeyaan laabto cariiri kara qofka laabtiisa cariiri ka dareento والول يول بهار انت نقصكم قفر نف الويان سبحان الله وحول بوت دقدقه قفك وحو دريميا عرا دقدق دريميا محسنان قفكاس مر والبو محسن انك قوات كاتو ان سبخدو فكرتو تمال فريستو ان wax ka fakarto oo aad sida doonto u fakarto aad bay wad kaanay hilmaan badan ilow shafara badan inaad guursato inaad maaragtay dhibsato cabsi iyo qalqal fara badan inaad dareento همدا قلمدا واسكوي إن هذا حق الموت حلال إن هذا حق الموت إن حنون أن تجينين وقف كسر النور أنت لقاهيا مدخل لقاهيا قرب لحظة هذا إن حنون كعقبته أما وضنها لقاها تاجو إن نقص كنا ومار هردلا حوي سبع ديكا وكعة ديكر بوقبا ديكر وحاسو إلويان سكرتو كعدا سكرتو قفكو كعدا يدنا إلويان سبحان الله ما سفر بدن ها قفكو رافك تاجو ريال انت ده نفس هو يسبع انت ده هنا نفس هو يدبع كل اسكويدو رجع دمر بقى قول انت ضحك شو اسكويسو سبحان الله ايش هاي اسكلا يدنا ايش دحداس كسو دادتي لين الماي كتماد دون يساد قرنين المكاي ما نيسد ودمر بس كتريسو ريوين نسابينكي قرو فربدن ودهبينكي دريميسو اسئل كام قفكنو اسئل كام بيو يدنا ايشا اسكالي كلمه وددك laga dhaxbaxo qof eesha ay jooga mar walba rag iyo dumarba ilaahay ka dulqaado qofku wuxuu jecel yahay kali ahaado ayuu jecel yahay shaki dadka dhan oo xumaanaad ka malayso qof sameynaya ka waxa soo yiri shaki fara badan qaado dadka dhan ka dido mar walbana imanaya waswaas